in uu ku dhammaado si midnimo ah wada shaqayn ah walaalnimo ah soomaalinimo leh isu tanaasul leh saa ogtihiin maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxay u baahan tahay waa xilli kala guur ah waa xilli daruufo badan ay haystaan shacabkii Soomaaliyeed ugu yaraan cimiladii ay isbedeshay oo hadda ay dayr tahay ay fatahaado socdaan ay wabiyaal fatahayaan oo shacab Soomaaliyeed ay biyo ku dhex jiraan marxaladda maanta lagu jiro oo saas u adag iyo shaqooyinkii fiicnaa oo joogtada ahaa oo la soo maray oo Soomaali ay soo martay maanta waxay u baahan tahay oo looga bixi karaa oo looga gudbi karaa wada jir iyo in gacmaha la isqabsado dalka iyo dadkana loo turo si Soomaalinimo ah oo walaalnimo ah oo islaamnimo ahna la isu raaco madaxda inta joogto oo heshiisay iyo madaxda kale oo Soomaaliyeed oo maqan meel kasta ay joogaan waxay u baahan tahay in arrimaha Soomaaliya isku fikir laga noqdo siyaasad ha noqoto dhaqaale ha noqoto doorasho ha noqoto horumarinta ummadda ha noqoto Soomaali maanta waxay rabtaa midnimo iyo wadajir iyo isu tanaasul iyo isu samir la isu samray u baahan tahay haddii marka intaas la sameeyo daruufaha hor yaallo dhan waa laga gudbayaa talada Soomaaliya intaanada iyo in kale naga dambayso yay u baahan tahay inay meesha ay maanta joogto ka sii gudbiyaan waxaan rabnaa go'aanka fiican iyo fikirkan aan sameynay oo soo baxay shirka intaanada hadda inta joogtay oo noocyada kala duwan lahayd iyo inta naga dambayso nala qaadan doontaba inta dhimanna inaan wada dhamaystirno oo aan Soomaali jid fiican aan u sahmin saa ogtihiin dadka Soomaaliyeed baqdinta iska badan hore baan u sheegay shakiga iska badan wal istuhma laakiin waxa jirto oo muuqato in waxa laga baqaayo oo dhibaato ah Ilaahay nooma keenay aysan dhici doonin sida hoggaanka maanta dalka ugu sareeyo go'aanka siyaasiga ah oo ay qaateen oo ah in dadka Soomaaliyeed la isku wado oo annagana aan koow ka nahay ay u dhaqan gasho yay tahay tan hadda aan inta u fadhino waxa kale oo ogaaleysaan faa'iidada ugu weyn oo maanta aan hayno oo shirkan ka soo baxay waxa maanta hartay oo Dhuusamareeb iyo Galmudug ku hartay dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah ma wada shaqeeyaan maanta hartay waa maqlaysan Saciid suu u sheegay si fiican baa u fahanteen maanta wada shaqeyn fiican baa jirto dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah si fiican bay u wada shaqeeyaan dawladda Soomaaliya dawladaha xubnaha ka ah iyo waxaan rabnaa dawladda xildhibaanada iyo madaxdooda guddoonkooda iyo guddoonka labada gole iyo cid kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliyeed oo madax ah ayadana inaan fikirkaas wada qaadano wada shaqeynta ah iyo sidii marxaladan hadda lagu jiro looga gudbi lahaa sida uu sheegay Saciid waa runtiis aniga naftirkeyga dhowr jeer baan xildhibaan soo noqday ilaa iyo 12 sano waxaan ku jiray siyaasadda Soomaaliya marxalado kala duwan xildhibaan wasiir intaba waa soo ah markuu waqtiga dhamaado walwalka ugu badan oo imaanaya waxa waaye maxaa la noqon doonaa xilkan Ilaahay baa bixiyo wax la noqonayo male adinka dalka madax u ah xildhibaanada adinka siyaasiyiinta ah adinkan idin naqaanaa adinka shaqo fiican soo qabtay waar in kala shaqeyn doonaa yuusan walwal jirin darajada Ilaahay baa bixiyo annagana dadkii saaxiibadiina ahaa oo kulligiina ahaa oo in la soo shaqeynay aniga hal sano xildhibaannimo iyo mooga xildhibaan iyo wasiir baan ahaa waa dareemi karaa marka dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan siyaasi laga wada dhigi karin ninka maanta xildhibaankiisa oo wasiirka iska bax ma sahlano maxaa yeelay dabakaayana ma furan karo siyaasadii uu rabo inuu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya hore u sheegay wuxuu yiri dhibaatadan haysata siyaasiyiinta Soomaaliya oo badatay way kun wasiir oo wasiir kale wasiir sii rabo wasiir kale wasiir sii rabo marka waxaan rajaynaynaa insha Allah
isfahan kan fiican iyo go'aan kan midnimada leh oo galmudug ka soo baxay inuu noqdo mid Soomaaliya oo dhan ay isla raacdo oo la isla wada qaato midka dambe shirka dambana uu noqdo kii lagu gabagabeyn lahaa oo dadka dhan ay ku midoobi lahayn insha Allah waxaan rabaa si gooni ah inaan ugu mahadceliyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya hogaaminta fiican iyo bisaylka iyo sida uu tanaasulka iyo isku wadka ah iyo dulqaadka uu sameeyay madaxweynaha aad ugu mahadsan yahay sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyo xukuumaddiisa iyo shacabka reer Galmudug oo ayagana sidaas oo kale anaga bariba 15 maalin wax aan dareenay ma jirto oo waxaan inta lagu sheegi karaan ahayn wax kale oo dareenay male wax kale oo naga maqlaan ma jirin waxaan inta lagu sheegi karin bas aan dareenay oo aan ayadana waa laga soo tawaabshaysan doonaa safarka daba markii la soo roqdo Ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsantiin